والله aad waxa u soo dhaweynaa madaxweynaha qaranka ra'iisul wasaaraha hadda ku biira asigana muxuu ahaa furinta hore dagaalka waa naf hurid maanta waxa waaye in madaxweynihii dalka ugu sareeyay odagii muxuu ahaa qaranka inuu maanta jiid hore dagaalka taagan yahay wax aad loogu farxo aan soo dhaweynayno inaan taageerno dagaalka hadda socdo wax kastay noqoto hadday noqoto inaan tuuta xiranayna diyaar u nahay bismillah assalaamu calaykum dhamaan Soomaali weyn meel kasta aad ku sugan tihiin Ramadan Mubarak insha Allah dana waxa waayay ciida noo dhow kuwii ka faa'iidaystay ilaha naga dhigay Ramadaanka toban ku dambaysto haleelana habeenka muxuu ahaa Laylatul Qadarka intaas kadib aadan ula socda muxuu ahaa guddiga doorashooyinka tilaabooyinka ay sameeyeen inay muxuu ahaa seminaaro fureen qaybtii kood u soo dhamaatay qaybtii xiga ay gali doonaan qalabkii ay heleen waa wax aad muxuu ahaa u bogaadinayno aan u soo dhaweynayno hana dabcan iminka waxa lagu dhawaaqay qabashada doorashooyinka golaha deegaanka 30 Juun sanadkan in golaha deegaanka la qabto doorashooyinka ugu horeeyaan maxaa is leedahay oo loo baahan yahay waad mahadsan tahay rashka June kullay waqti badan kama harin marka si aad u fiirsana maxallaha iyo dadaalada ay sameynayaan guddiga waxaad moodaan maxallaha inay insha Allah diyaar u yihiin anagana wixii tala diyaar u lanahay qaabkay ku bilaabato doorashooyinka deegaanka muhiim waxa ah marka koowaad in iskuulaadka la tago oo la siiyo iskuul kasta 2 maalin oo kaararka national ID ay wada qaataan bulshada dhammaan oo dhalinyarta muxuu ahaay wadankeena u badan tahay in laga bilaabo 2 maalin iskuul kasta la tago ID kaarada la siiyo warqado la daabaco muxuu ahaa qaabka doorashada loo galaayo muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay siyaasiga wuxuu xaq u leeyahay dhammaan buug yaro maxallaha qof ka saqaada karo beeshka badnaan in la siiyo dadka shacabka loo daadiyo ardaydaas waxay ka caawinaysaa waxay tahay isla ayaga lagu tijaabi karaa doorashooyinka iskuulaad ka dhacdo si ay dadkooda ula wadaagaan arday kasta guriga ka soo baxay si easy waxay ku gaaraysaa dhib yar guri kasta in doorashada diyaar loo yahay qaabka loo codeynayo iyo goorta iyo wax kasta oo ku saabsan doorashada waxa qayb ka ah sugidda amniga dalka iyadoo iminka madaxweynihii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya uu joogo dabcan cadale dadaalada ku aad madaxda qaranka in meesha laga saaro kooxda cadowga ee qawaariijta si loo xaqiijiyo amniga dalka ka waran والله aad waxa u soo dhaweynaa madaxweynaha qaranka ra'iisul wasaaraha hadda ku biira asigana muxuu ahaa furinta hore dagaalka waa naf hurid maanta waxa waaye in madaxweynihii dalka ugu sareeyay odagii muxuu ahaa qaranka inuu maanta jiid hore dagaalka taagan yahay wax aad loogu farxo aan soo dhaweynayno asigana insha Allah intuu nool yahay iyo hadii oo waqtigiisa tagaba wax lagu xasuusan doono inay tahay waxyaabo badan waxaan ka aragnaa guul laga gaaray haddana waxaan bogaadinaynaa dagaalkaas maxallaha dalkeena dib aan ugu xoreynayno meel kasta oo aan joogno hadday ahaaleed maxallaha fikir hadday ahaaleed maxaan ka qayb qaadano wax kasta waxaan diyaar u lanahay dana qurba joog aragti iyo muxuu ahaay wax kasta ku saabsan doorashadaas iyo si dalka muxuu ahaay loo nabday lahaa waxa wax badan dabcan ka soo shaqeysay aqoontaada xagga doorashooyinka adigoo shaqooyin badan ka soo qabtay dalka Norway iminka waxa tahay qof dhalinyaro ah oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee UK aqoontaada doorashooyinka dalka ka dhacaya ee qof iyo cod maxaa ku muuqan karo caqabado ah oo loo baahan yahay ka hor doorashada in la xadiyo wallahi caqabadaha way badan yihiin laakiin intoodaba muxuu ahaa alxamdulillah aniga iyo dad badan oo maxaa la iga aqoon badan oo doorashada aqoon u leh waxyaabaha ka hor imaan karane si og sida loo xali karan aan ka shaqay karno waxay naga caawinaysaa hadaan muxuu ahaa midnimo aan muujino aan dalka muxuu dhiig u horno in aan ka anbabixi karno muxuu ahaa meesha ku sugan yahay qof iyo codkaasna maxaa la caqabadaha naga hor imaan karo inaan sameyn caqabadaha waxa kamid ah waxay tahay hadda ay dawladda madaxweynaha ugu horeey ku huulan yahay amni haddii la helin doorasho ma dhacayso waa inay amniga maxallaha la helaa siyaasadda waa in laga heshiiyaa ururada maxallaha siyaasadda xisbiyada dhammaan maxallaha aragtidooda waa inay muxuu ahaa meesha ay ku jirtaa waa in la fadhiistaa waa in waxa ay meesha ku biiri karaan waa inay keenaan qabiilaadkii oo maxallaha siyaasadda ay dabada u galayso qabiilka weli hubaysan weli waxaad moodaa galangal badan inay nagu leeyihiin shisheeyaha ay qof wataan ayagoo xisbiye ah ayagoo siyaasiyiin ah
intaba muxuu ahaay caqabado oo dalkan maxaa lahay ay noqon kartaa maaliyadana maxaa lahay in aad looga taageero muxuu ahaay guddigan ku howlan muxuu doorashooyinka aad u bogaadinaya because maaliyadda waxa waaye waxay ka caawinaysaa in la baahi tiro xuquuqda asaasiga oo leeyahay marka la siiyo dad ka shaqeynaya meesha waxaa arbaabaha kasoo xiranayna in maxaa lahay boorsooyin lala soo galo dalkan oo guddiga la kala jebiyo ama maxaa lahay tashuush badan lagu furo sidoo kale waxaan boorinayaa muxuu ahaay dadka hadda dufcaddii koowaad oo hadda muxuu ahaay lasoo xiray in lagu xijiyo 1 iyo 2 kale oo la tababaro oo la haysto in dadkaas kaliya laga faa'iideysan oo la dhihin doorasho kaliya gaarsiinaysiin laakiin noqdaan dad qaranka waxa u shaqeeyay dabcan dalka iminka sidoo kale dhawaan qaar ka mid xisbiyadu waxay bilaabeen in shahaadooyinka macna aqoonsi ay qaataan oo guddiga doorashooyinka uu siiyo dalku wuxuu u gudbi doonaa nidaamka asxaabta in xisbiyadu ay qaadanayaan shahaadooyinkooda aqoonsi ma ku muuqataa iminka in wax badan oo caqabado ah iyo fahamka bulshada iyo siyaasiyiinta uu soo hagaagayo dalkan uu aadayo nidaamka xisbiyada aad u weyn tilaabo oo muxuu ahaa la taabo karay muxuu ahaa xisbi maxaa lahay guddiga doorashooyinka muddada ay dhisan yihiin tilaabooyinka muxuu ahaa ay qaadeen oo aad loo bogaadinayo weliba in maxaa lahay laga sii ballaariyo meeshan naftirkooda seminaaro la siiyo muwaadin inay yihiin inay maxaa lahay ay cod soo doonteen waxay xaq u leeyihiin iyo waxaan xaq u lahayn in amnigooda la sugo in wada shaqeyn hoos ay dhacdo waa wax aad muxuu ahaay aan ugu dhiirina in la sameeyo waana wax bogaadin badan in maxaa lahayay guddiga muddada yar oo dhisan yahay tilaabooyinka muxuu ahaay oo qaaday qalabkii oo dhammaystiran seminaaray bilaabeen insha allah inta dhimana waa wax yar fariintan ugu dambaysa ee guddiga doorashooyinka iyo dagaalka qawaariijta hanad muxuu yahay waxaana la gudboonaa waxay tahay aragti inaan bixino wacyigelintaas maxaa la inaan muxuu ahaay heerkii ugu dambe inaan gaarsiino qof kasta maxaa la social media meelaha muxuu ahaay dadka kugu hareeraysan wadaagtid in loo sheego maxaa lahaye dalkan in uu u baahan yahay maxaa lahayay talada dib in loogu celiyo maxaa lahayay shacabka Soomaaliyeed wax lagu celi kari kalina waxay tahay in amni laga dhigo dalkoo hal gacan ku jiro in muxuu ahaay lagu gaari kartaas taasna waxay naga caawinaysaa waxay tahay amaba muxuu ahaay laga labalabay karin inaan taageerno dagaalka hadda socdo wax kastay noqoto hadday noqoto inaan tuuta xiranayna diyaar u nahay hadday noqotana maxaa lahaye fikir iyo muxuu ahaay wax kastay maaliyadda ay ahaaleedna diyaar aan u nahay waa mustaqbalkeena gacanta ku haysana furaha nolosheena waxaan leeyahay qof kasto Soomaali ah yaadan martiha ka noqonin wax un ku taageer ha noqoto maxaa la fikirkaada post yarad ku soo qorto muxuu ahaay social media isticmaasho reerkaada la wadaagi lahayd dhammaan iyo loo kala harnaan leh insha Allah guul Soomaaliya